السلام عليكم أصحاب تسود هذا ما أنتم حرب أنا شرح فيلم هرر كاسو مقعوس يا دمرس داو شو عن وتحضر فضلا هنلاقي ما من سبسكرايب لايك شير ما تسندين فيلمك waxa uu ku bilaabanayaa Max iyo saaxiibtiis Kayla kuwaas oo u socday dalxiis balse nasiib xumo inta ay sii socdeen ayay galeen shil waxaana ku geeriyootay Kayla Max waxa uu naftiisa u sheegay inuu qaladkan asaga lahaa maadaama uu ahaa darawalkii gaariga si kastaba ha ahaatee aad ayuu u murugooday Max waxa uu ku soo laabtay xaafadii intaas kadib nolosha Max aad ay u burburtay tani waa dhakhtarada Max waxa uu u sheegay wax walba ku dhacay habeenkii xigay kani waa Henry oo ah waardiyaha xaafadda waxa uu wataa toosh sidaas darteed waxa uu soo gudbay gudaha waxa uuna ka leexiyay daaha miyaaradii ayuuna toosh ku ifiyay intaas kadib maxaa dhacay Henry waxa uu bilaabay inuu la hadlo maraayada balse waxa si lama filaan uga dhacay tooshkii uu ku ifinayay maraayada waxa uuna ku dhacay dhulka intaas kadib waxa uu bilaabay inuu soo qabsado tooshka balse ma uusan qabsanin maraayada ayuu dhulka ka soo qabsaday waxa uuna bilaabay inuu cuno afka ayuu dhiig ka keenay Henry waa uuna qayliyay balse ma jirto cid maqashay qaylidiisa waxaynu aragnaa mar kale Max waxa si lama filaan ku soo wacay aabihiis waxa uu u sheegay inay jirto dhibaato in la xaliyo u baahan Max ayaa weydiiyay aabihii waxa ay tahay dhibaatada aabihii ayaa dhahay waxa jiro waardiyaasha mid kamid ah kaasoo dhibaato soo gaartay iyo sidoo kale waardiyo ku dhawaad 2 bil aan la arkin Max ayaa tan fursad u arkay maadaama noloshiisa hore ay u burburtay sidoo kale aabihii waxa uu ku amray Max inuu isla markaan aado xafiiska Max waa uu adeecay amarka aabihiis waxa uu go'aansaday inuu aado subaxdii xigtay kani waa Max waxa uu u socdaa goobtii shaqada balse wuxuu si lama filaan ku arkay gabar wax la yaab leh sameynaysa balse bareeg uma qaban gudaha ayuu soo gudbay waxa uu yahay go'aankiisa inuu soo arko wixii uu soo diray aabihiis waxa uu bilaabay inuu barto dadkii meesha joogay waxa uu dhammaan barta magacyadooda madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madax sugaha kuwaas oo magacyadooda yihiin Ryan Kayler iyo Jenna waxa uu aaday jikada waxa uu gadaashiisa ka arkay naag taagan waxa aynu ku noqotay been abuur iyo dhalanteed balse haddana miraayada ayuu ka arkay Jenna oo ahayd shaqaalaha mid kamid ah la yaab ayuu ku noqotay waxa meeshan ka dhacaya habeenkii xigay kani waa Max waxa uu dhex joogaa suuqa waxa uu wataa toosh asagoo wareegaya ayuu miraayada dhexdeeda ka arkay isla Jenna oo qoorteeda bixinaysa aad ayuuna uga cabsaday la yaab ayayna ku noqotay haddana tani waa isla Jenna oo joogto meesha qabayska isla ayada ayaa haddana maraayada iska dhex aragtay saayid ayayna u cabsatay waa ayna dhacday waxa saas ku burburtay nolosheedii meesha ayayna ku gariyootay si kastaba ha ahaatee Max waxa loo sheegay geeridii Jenna aad ayuuna ugu murugooday balse haddana waxa uu aaday suuqa asagoo iska socdo ayuu haddana silma filaan maraayada uu dhex arkay Ryan taas oo kamid ahayd shaqaalaha si kastaba ha ahaatee Max waxa uu ogaaday nolosha Kayler inay qatar ku jirto waxa uu soo dhaqaaqay dhankaas iyo leelenka inuu waco balse kani waa Kayler waxa uu sameysanayaa cunto waxa uu joogaa xaafadiisa intaas kadib waxa uu bilaabay inuu banaanka u soo baxo uu aado qolka balse waxa lama filaan ku noqotay inuu iska arkay maraayada cabitaanka ayuuna tuuray waxa uu si tartiib ah u soo dhaqaaqay dhankaas iyo maraayada kani waa asaga waxa uu iska dhex arkaa maraayada dhexdiisa aad ayuuna u cabsanayaa si kastaba ha ahaatee Kayler waxa soo gaaray dhaawac kaasoo ka soo gaaray lugta waxa uu bilaabay inuu qayliyo balse ma jirto cid maqashay qaylidiisa sidoo kale lugta kalena waxa ka gaaray isla dhaawac oo kale Max ayaa wacay taleefanka Kayler si uu u badbaadiyo balse nasiib darro ma jirin cid ka qabato Kayler aad ayuu dhibaatoonayaa balse wuxuu arkay dhaawac mid ka weyn oo soo gaari rabo waa uuna qayliyay sidoo kale waxa asagna maanta dhan ku soo wareeraya Max kaasoo wacay taleefankiisa waxa uuna rabaa inuu badbaadiyo balse markii laga qawaay waxa uu go'aansaday inuu xaafadiisa u ordo si uu u badbaadiyo waa uuna soo fagtay intaas kadib waxa uu xaafadda ugu imaaday warbaahinta iyo booliiska xaafadii joogaan intaas kadib Max waxa uu bilaabay inuu aabihiis si uu ugu sheego wax meeshan ka dhacay iyo sababta ay u dhacayaan waxaan balse wuxuu si lama filaan ku arkay qatar ku wajahan aabihiis taas oo dhibaato loo geysan rabo waxa uu bilaabay si uu ku badbaadi lahaa inuu falkeeda galo intaas kadib taleefanka ayuu damiyay wuxuuna ku dhaqaaqay si uu aabihiis u badbaadi lahaa xaafadda ayuuna aaday kani waa Max aabihiis kaas oo iska haysta shaqadiisa balse asna waxa uu dareemaa dhibaato iyo cariiri saayid ah sidaas darteed waxa imaaday wiilkiisa Max kaas oo ogaa qatarta ku wajahan aabihiis balse aad ay ugu farxay markii uu arkay aabihiis oo nabad qaba Max waxa uu dareemaa murugo fara badan maadaama falalkan oo kale hore uu soo arkay sidoo kale
Max waxa uu dareemaa in aabihiis oo dhibaato haysato, aabihiisna waxa uu iskaga jiraa jawi degan. Sidoo kale kuwan waa Max iyo laba dambi baarisa kuwaas oo ku eedeeyay Max inuu geystay dilkii, balse waa uu sheegay inuu sabab ku lahayn waxna uu ka ogeyn. Sidoo kale Max waxa uu la yaabin yahay sababta dadkan loogu haysto, waxa ayna weydiiyeen su'aalo ayna u sheegeen su'aalahaas haddii uu ka jawaabo ama caddeyn lagu waayo inuu fasax yahay. sidaas darteed waa ay fasaxeen waana lagu waayo wax caddeyn ah. asxaabta muuqaalka oo daqiiqadiisa ay dheeriin awgiis waxaan u kala qaybnay laba qaybood. tani waa qaybta koobaad. fadlan muuqaalka like saar lana soco qaybta labaad. mahadsanidin.